السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي على الميل بعدين دافيدا كجوكتان مقعي waa maxamed sacad mastarnay youtube kaga daawaneysna waa muwaad sacad mastarnay fadlan kusoo dhawo channelkayga haddii aad ku xustaan subscribe iyo comment qof family mastarnay mahadsanid hana ka ilaawin muuqaalka in aad like saarto si uu dad badan ay u daawadaan waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan waxaan rabaa in maanta wax yar aan ka hadlo waxaan arkay baraha bulshada nin sheekh ah oo dumarkii iyo dhalinyaradii kabaha la dulmaray marka intii aan aniga wax ka fahansanahay mise inta aan wax ka dhihi kara ayaan rabaa in aan wax ka dhaho horta runtii markii aad tahay qof bulshada hor imaanaya mise qof bulshada soo hor fadhiisanaya mise qof bulshadu ay bulshadina wacyigelin rabo mise bulshada rabo inuu wax u sheego waxaa jira luqadooyin badan oo loo isticmaalo runtii sheekhaas anoona ataageen haddana wuxuu isticmaalay luqad aad iyo aad u qalafsan luqad aad iyo aad u xun luqad aad iyo aad uga fog sheekhnimada iyo wacyigelinta bulshada markii aad luqad bulshada aad rabtid inaad wacyigelisid bulshada u baahan tahay inaad wax u sheegtid mise aad tahay indhihii bulshada sida ognahay culimada waa indhihii bulshada waxaa loo baahan yahay luqad yar oo qurux badan oo khafiif ah oo qofka uu wax ku fahmi karo in aad wax u sheegtid sheekhaas runtii laba muuqaalan ka daawaday labada muuqaalba waa fajac iyo argagax qofkii arkay wuu arkay qofkaan arkina arto labada muuqaal intaan idin kaga sheekayn bal muuqaalka koowaad bal ila soo daawo dib aan iskugu soo laabana kadib dhilay waa dhiloodhin loo sheego waa dhiloodhin kuwa badda iskula soo dabaalanaya waa dhilooyin footooyinka kuwa isku soo sawiro qof eeganayo inta meesha gashada waa dhilooyin ha loo sheego waa dhilooyin ha ogaadaan anu ma dhihin waa dhilooyin gabadha ajnabiyada ma iska daawanaysa dhilay baa tahay nin ajnabiya ma daawanaysa dhilay baa tahay okay muuqaalka waa soo daawatay wuxuu leeyahay gabadhaha badda gala iyo wiilasha badda gala waa dhilooyin gabadhii fiirsata wiil ajnabi ah sawirkiisa aragta waa dhilo wiilkii gabar ajnabi ah sawirkeeda arkana waa dhilo okay haddii aan arko sawir meesha ka maraayo Facebook oo kale sawir gabar haddaan arko indhahayga ku dhacaan ma dhilaya ah gabar haddii sawirkiisa aragta ma dhilaa mideeda kale adigoo sheekh ah ee indhihii dadka ah in aad ereygaas dhilla adeegsatahay waxay u keenaysaa qofka aad wax u sheegaysid confuse inuu wax kaa qaato iska daayo falki xumaa uu ku jiro ayuu kusii dhiirinaya markaas sidaa ognahay culummadu waxaa waaye indhaha bulshada waa indhaheenni waa dadkii nahaagi lahaa laakiin haddii aad nagu hagtaan waddo adag oo xun oo qalafsan iyo luqad adag haddii aad noo adeegsatid kabaha ayaan sii jafanaynaa waa sii cararaynaa ma ahane sooma laabanayno muuqaalka labaad ee isagana uu waliba muuqaalkana aad iyo aad xasaasi u ah bal muuqaalkan labaadna ila soo daawo kadib aan isku soo laabana isagana warnaagaa is cadeeyey oo daalimaadka oo faasiqaadka oo balaayada ku dhacday oo diinta ku tuntay oo lacnada ku dhacday ilaahay uga cabsada hadday iskaabulo tahay way lacnadan tahay hooyo la qabo hadday tahana way lacnadan tahay hadday miyi joogto way lacnadan tahay hadday gobol joogto way lacnadan tahay hadday tuulo joogto way lacnadan tahay hadday dalka joogto way lacnadan tahay hadday dabadda joogto way lacnadan tahay way lacnadan yihiin gabdhaha iscadeeyey rabbiga inay khalqay ka cabsada gabdhaha iscadeeya way lacnadan yihiin ha ogaadaan rasuulku waxa uu yiri sallallahu alayhi muuqaalkan labaad wuxuu leeyahay gabadha haddii ay iskaabulo tahay waa nacladan tahay haddii ay hooyo tahay way nacladan tahay haddii ay gabar tahay way nacladan tahay haddii ay mii joogto xitaa way nacladan tahay sababtay tahay gabdhaha diyaanada marsada ee jirkooda caddeeya way nacladan yihiin carada allah ku dhacday waa xaaraan naclad baa ku socoto leeyahay okay qofka noocaas ah waxa ugu sheegaysa oo aad leedahay gabar yahay daawadan aad marsanaysid waad ku nacladan tahay naclad baa kugu socota gabadhaas inay wax kaa qaadanaysa shiiqo ma kula tahay mise ma u malaynaysa qof noocaas inaa wax uu kaa dhagaysan karo mise fikradaada uu qaadanayo mise uu ku aaminayo xiteen maya
mideeda kale qofka markaa rabtid inaad wax u sheegtid luqad qurux badan oo qoyan oo naxariis leh ee uu fahmi kara qofka lagula hadla laakiin markaa dhahdid waa nacladan tahay gabar yahay naclad baa kugu socota cid wax ka dhageysanaysa ma lahan mideeda kale xitaa dictatori ahaan markuu uu qofka ficilka bixinayo xitaa sheekh wuxuu leeyahay waad nacladan tihiin wuxuu sameynayaa dictatori ahaan ficil adiga dictatori oo kala ah taasna uma maleynaa culimada Soomaaliyeed saas inay wax u sheegaan qofka markuu uu indhaha dadka yahayna waxa la rabaa luqad qoyan oo jilicsan dadka inuu kula hadlo luqad qofka uu fahmi karo luqad qofka maskaxiisa dejin karta luqad qofka uu isdhihi karo waxaan waa sax ka laabo ha daawada way xun tahay way xun tahay laakiinse ma ahan inaad dhahdo naclad baa kugu socda aayadda quraanka tir naclad baa ku socda daawo hadii la marsado gabdhaha ma noo sheegi kartaa sheekh xadiiska ma noo sheegi kartaa maya ma jiro marka waxa rabo muuqaalkaas anoo sheekh ku fogaanaynin walow sheekh dadka ay kaftan kale ula bixeen ay dhaheen faladeganka culimada laakiinse aniga kuma xad gudbaayo qof waxa waaye waalidkii oo kala laakiinse waxaan ka hadlay oo kaliya fikirka yar ee ugu jiray maskaxda yar ee ugu jirta sida aan wax ugu dhigi lahaa waan ku maasinta daawashada muuqaalkan haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like ta ka ilaawin waana ku maasinta daawashadiisa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh